wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya oo sheegay in ciyaaraha ka socda gobolka Banaadir ee u dhexeeya maamul goboleedyada dalka inuu qayb lixaad ka qaadan karo dhanka isdhexgalka bulshada. warkaasi waxay noo diyaarisay wariyaheena Ken Cumar Makaraan. wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xasan Nuur ayaa waxa uu sheegay in ciyaaraha u dhexeeya maamul goboleedyada ee ka soconaya garoonka Stadium Konis ee magaalada Muqdisho inuu yahay ciyaaro looga gol leeyahay isdhexgalka bulshada. waxa uu wasiirku tilmaamay in dhalinyarada ka qaybgalaysa ciyaaraha ay soo bandhigeen kubad aad u sareyso taasoo muujinaysa niyad wanaagga. waxa uu tilmaamay in dhalinyarada ay ku keeni karto in ay ogaadaan waxyaabo ka dhexeeya bulshada u hogaamin kara in si niyad wanaagga ay iskula dhaqmaan. runtii waxay ahayd hadafka ugu badan ee kala hayn inay dhalinyarada Soomaaliyeed wax ka wada shaqayn karaan inay muujino. runtiina waxay ahayd ciyaartan inay matalayso isdhexgalka iyo wada shaqaynta ka dhaxayn karta dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay beys u noqon karaan ciyaaruhu waxay yihiin wax uusan qofna qofka kaleeto si ka duwan sida uu rabo una u rabin. waxaad u jeedeen garoonka inta ay dhalinyaradu ku kufaysaa ama isku lagdaysaa ama lagu isku dhufanaysaa uusan qofna qof kaleeto u xanaaqin una cadhoonhaynin. taasi waxay ku tusaysaa qalbigooda iyo wada jirka. maalin walba garoonka waxaa soo gala tiro aad u fara badan oo madaxa, tiro aad u fara badan oo dhalinyaraha, boqolaalka iyo kumanaanka dhalinyarada ay isu yimaadeen. waxaan aad ugu hambalyeynaa gobolka Banaadir oo si qiimo iyo tixgelin leh u martigeliyey muxuu ahaa dawladaha isteediyada federaalka hoostaga oo runtii iyaguna muujiyey kalsooni iyo ciyaar wanaag ku habboon muxuu ahaa waqtigii loogu talagalay. waxaan aad ugu hambalyeynaa ciidamada ammaanka oo sida quruxda badan ee garoonka ilaa iyo maalinta ciyaartu bilaabatay ilaa hadda aysan ka jirin wax caqabada ama wax isku hawla. sidoo kaleeto bahda isboortiga ha noqoto kubadda cagta iyo ciyaaraha fudud, sidoo kaleeto olombikada dhammaan cid walba oo ka qayb gaysatay quruxdan waxaanu aaminsanahay inay qayb weyn ku leeyihiin Soomaaliya. runtii qof walbana ciyaarta wuxuu ka fiirsanaya guryaha iyadoo si toos ah looga fiirsado meel walba kumanaan iyo malaayiin dad ay fiirsadaan. waxaana u aragnaa inay tahay wax mudan in lagu farxo, in la dhiirigeliyo. waana ku faraxsanahay shacabka Soomaaliyeed inay aad u dhiirigeliyaan iyo dhammaanba warbaahinta hambalyo gaar ayay ka mudatay ciyaarahan sida u tabiyaan, sida aad isu hawshaan idinkoo marar badan la kulmaya culaysaad soo gelitaanka. waan idinka tacsiyeynaa culays kastoo la kulantaan, laakiin qaybta aad ku leedihiin inay tahay qayb aad u wanaagsan, qaybta amnigu ku leeyahay qayb ka badan inaad ku leedihiin ciyaarahan. marka bahdina isboortiga si gaara ayaan wada jir iyo midba idinku hambalyeynaa sida aad uga qayb gasheen. la'aantiin wax badan ciyaarahan lagama fahmin. marka hambalyaan idin leeyahay. Ken Cumar Makaraan, Somali Cable, Muqdisho.